magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal ayaa maanta waxaa si rasmi ah looga furay xarun casri ah oo lagu meydhi doono gaadiidka taasi oo ka casrisanaan doonta qaababkii hore magaalada Boorame loogu meydhi jiray gawaarida haddaba kaalinta Geela Fuel Station and Car Wash oo soo kordhisay car wash-kan cusub ayaa maanta waxaa si rasmi ah looga furay xarunta Geela Fuel Station and Car Wash ee magaalada Boorame haddaba ugu horeyn waa kani Cusable Xasan Suldaan Saleemaan oo kamid ah macaamiisha maanta halkan ku xidhnayd ayaa waxa uu aad u soo dhaweeyay xarunta cusub ee meydhista gawaarida waxaanu sheegay sidani Rahmaan Rahiim anigu magacaygu yahay Cusable Xasan Suldaan waxaan halkan marka hore ugu mahad celinayaa mulkiilaha leebaatan cusub noo furay Cabdiqaadir Xasan Cabdilaahi anigu ku hadlaya bahweynta magaca ITL gobolka Awdal aad baan ugu hambalyeynaa leebaatan casriyaysan oo cusub u furay oo ugu mahadnaqana insha Allah dadkana waxaan ugu baaqanaa inay ogaadaan meesha bulshooyinka kale waxaan ugu baaqanaa inay ka soo qayb galaan geestiisa gudoomiyaha gaadiidka loo yaqaan Land Cruiser-lada ee gobolka Awdal Cabdiraxmaan Nuur Aadan National ayaa waxa uu aad iyo aad ugu mahadnaqay mulkiilihii yagleelay xaruntani cusub ee meydhista gawaarida waxaanu sheegay isaguna sidani awalan ilaahay baa mahad leh nawaafajiyay maanta inaanu ka qayb qaadano furitaanka leemachada Geela Car Wash oo maanta laga furay magaalada Boorame aad baan ugu mahad celinaynaa inanka dhalinyarta ee maalgelinta sameeyay wax kastoo la maalgeliyo shaqo abuur baa meesha ka imanaya marka hore anigoo ku hadlaya oo ah gudoomiyaha ITL gobolka Awdal la Cruiser-lada hay'adaha inta badan oo shaqeeysa loo fahmi doona waan taageersanahay leemachadan cusub ee laga furay gobolka Awdal insha Allah waxaana ka mid noqon doonaa macaamiisha ugu waaweyn leemachada waxaan hayaa kaad aad ii qanciyay markaan arkay kaarkaas oo ah gaarigu maalinta uu maydho waxa lagu qorayaa taariikhdiisa 6 jeer gaarigaasi markuu maydho ama 7 jeer maalinta 8aad waa u free waa horumaray gaareen qaabkani waa qaabka caalamka ayuu Cabdiqaadir keenay aad baan ugu mahad celinaynaa waxaana ka mid noqon doonaa insha Allah biidmillaah inaan noqono macaamiisha ugu waaweyn ee leemachada aad baan u salaamayaa aad baan mahadsantiin geestiisa waa kani Yuusuf Cabdi Cali Indhaqurux oo ka warbixinaya xaruntani cusub ee maanta Geela Fuel Station and Car Wash ku soo kordhisay magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal iyo waxyaabaha kaga duwanaan doonto xarumihii hore meydhista ee magaalada Boorame ku yaalay waxaynu ku suganahay dhismaha oo iga dambeeya Geela Car Wash and Fuel Station oo maanta lagu soo kordhiyay nidaam ama cusub oo leemacho cusub oo runtii adeegeedu ka duwanaan doono adeegyadii hore ee leemachooyinku bixin jireen sida uu sharaxayay gudoomiyaha iskaashatada Land Cruiser-lada ee gobolku waana nidaam ku cusub runtii dalka oo dhan waxaan ugu talagalnay inaan ka buuxino mulkiilaha gaariga iyo gaari nambarka oo form ah iyo taariikhda iyo shaambadii beedka oo runtii ku dhici doonta qofku marka uu loo shaqeeyo 7 marka 8aad oo runtii celcelis ahaan noqonaysa bishii inay ku aadmayso inaan adeega uga dhigno free sida standardka caalamka waxaan ugu baaqayaa cid walba oo macaamiisha Geela Car Wash and Fuel Station inay soo dhawaadaan gacmo furan waxa kale oo mulkiyada leemachadan leh Cabdiqaadir Xasan Cabdilaahi oo loo yaqaan Qaadiro isaga laftihaantiisa waxaan leeyahay waad mahadsantahay waxaan noqon doontaa adeegi ku cusub runtii degmada iyo gobolka oo dhan iyo magaalada iyo Soomaaliland oo dhan ku soo wada duubo xaruntani cusub ee maanta yagleeshay Geela Fuel Station and Car Wash ee laga hirgeliyay magaalada Boorame ayaa waxay noqonaysaa xarun casri ah oo la jaan qaadaysa heerka caalamka ee gawaarida loo maydho Xuseen Aatay Jamaal Xuseen Gafne magaalada Boorame.